الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. walaalayaal, ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay: minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa. dadow, arladaasaan iniga abuurnay buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ciidda aad kor socotaan ayaan iniga abuurnay. minhaa khalaqnaakum, ciiddaasaan dadow iniga abuurnay. wa fiihaa nuciidukum, ciiddaana waan inigu celinaynaa. diida ama doona, ciiddaasaad ku noqon oo lagugu aasi. wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa, taasaan haddana iniga soo saaranaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ina nebi aadamow arlada isku qaadqaad weligaaba, ina nebi aadama weligaaba kibir, arlada aad kor socotid baad ku noqon. taasaa lagaa soo saari mar kale. ilaahay sidaasuu qoray subxaanahu wa tacaala. ikhwaani, waxaa laga soo hadlay mowdka iyo dhibaatadiis, sakaraatulmowdka iyo dhibaatadiis. waxaad suuradaysataa qofkii oo dhimanaya, sariirtii mowdka dul yaala, dadkii oo dhan ay ag joogaan, argagaxsan, malaa'igtii dhinac ka arkaya, awlaaddiisii, haweenaydiisii, jaarkii oo dhan ay wala ag joogaan, la wala ooyayo. wuxuu arkayaa malaa'igtii, masiirkiisii ayuu arkayaa. wuxuu ogaaday inuu arladan ka faaruqayo. wuxuu ogaaday awlaaddan inuu ka tegayo. wuxuu rabaa inuu la hadlo, hadal ma karayo. wuxuu rabaa inuu u dardaarmo, laakiin dardaar kuma hadhin. malaa'igtii buu arkayaa. wadanna annahu alfiraaq waltafat الsaaqu bالsaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq. waa la isku ururiyey. waxaa la raadiyey mid tabiiba, soo orod, sheekhi doona, qur'aanka ku akhriya, qibladda u jeediya, shahaadada xasuusiya. laa ilaaha ila allah. imisuu arlada isku qaadqaaday, imisaa lagu kari la'aa salaada, imisuu mu'miniinta u dhibayay. alla maxaa dembi saara? kii kale mu'minka ah wuu nuurayaa, dadkiisii wuu u dardaarmay. ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah buu leeyahay. wuu faraxsan yahay. malaa'igtii jannaduu arkayaa. khalaas, naftii way ka baxday. waa la qaadayaa, masaajidkaa la geeyey, waa lagu tukaday. xagga iyo qabrigaa loo wadaa. alqabr, qabrigaa loo wadaa. qabrigu muxuu yahay? haada almakaanu almansiy, meeshan aan ilownay maanta, meeshan la iloobay. wax xasuusta wuu yaryahay maanta qabriga. waxaad arkaysaa dadkii oo meydkii aasaya, oo luxudkii gelinaya, oo qoslaya. qaarkood sigaar bay cabbayaan, qaarkood nebigay caayayaan sala allahu calayhi wasalam, diintay caayayaan. qulubtii way ingegtay, indhihii ma lilmaynayso. dadkii khalaas, asbaxa annaasu fii hami اdunyaa wanasaw hama alaakhira. aakhire iyo warkeyga waa la iloobay. khalaas, qofkii baa lagu rogaya xagga. salafu haadihi اlumma markay xasuustaan qabriga iyo dhibaatada sugaysa way ooyi jireen. baraa
وحاوليها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى وأبكى. وحاوليها النبي اللي صلى الله عليه وسلم جنازة أحد الصحابة أيا لآسي نبي قبر قدنا كفليس صلى الله عليه وسلم قبر أيو حسوس ماشي يرى عديدي يقفل بأقليو جيبي والله قلي أنبياء دي هروي قلان dadkii saalixiintii way galeen xaggaasa la gelaya aduu waad geli anu waan geli gebigay waan gelaynaa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam meeshaasuu xasuust meeshaasuu ka fikiray waa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaahi baa kula minha khalaqnaakum xaggaasan inaga abuurnay xataa adiga muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaggaasaad ku noqon doontaa xaggaasaa lagaa soo saaray nabi allah نبي محمد باقال عيدا أدنا وادقري